dagaalkani waa kii ugu weynaa ee taariikhda dunida ee sirdoon la isku adeegsaday. markan waxaa horumarsan tiknoolajiyadda, waxaa la fahmay in qorigii lala ordayay ee xeelad kale lagu bedelo in badan. laba hay-adood ayaa isgarab ordaya isla markaana sida bisada iyo jiirka isku baxsanaya. tartanka sirdoonka, isgaarsiinta, xog ururinta, isbasaasidda ilaa xad ayaa waxaa kala horkacayay dhanka midowga Soofiyeed hay-adii uu watay ee KGB halka Mareykankuna uu carbiyay hay-adiisa caanka ee CIA. marka hore daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii warwareyn oo aan ku eegi doono barnaamijkii labaad ee dagaalkii qaboobay ee dunida, isla markaana ku fahmi doontaan arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay waxyaalaha maanta dunida weli raadadka weyn ku leh. aan ku bilaabo horta dhisidii xulufooyinka gaashaanbuurta NATO iyo Warsaw Pact. waxaa loo soo gaabiyey NATO, the North Atlantic Treaty Organization. abaabulkeeda iyo hindiseeda waxaa lahaa Mareykanka, gaar ahaan waxay kasoo muuxatay maskaxda madaxweynihii waqtigaas ee dalka Mareykanka Harry S. Truman, kaasoo la doortay sanadkii 1948. wuxuu kasoo jeeday gobolka Missouri ee dalka Mareykanka. waxa uu codadka ugu badan ee madaxtinimada Mareykanka uu helay doorashadii dhacday sanadkii 1948, waxaana muuqatay in qaramada midoobay aysan ku filaanin Mareykanka iyo danihiisa, sidaa daraadeedna uu doonayay in isaga iyo dalalka kale qarabada dhow lahaa inay samaystaan hay'ad kale oo gaashaanbuureed. ujeedku wuxuu ahaa in lagu kala baydhsan yahay waxa laga yeelayo dhulka Yurub ee Ruushka uu haystay, iyo in la hubiyo in dalalka galbeedku ay samaystaan wada shaqayn hoose oo buuxda. waxaana judhiba qorshaha u rixiyay dalalka Britain iyo Canada oo lagu tiriyo mar walba inay maraan iyagu halka uu tago ama uu ku arooro dawladda dalka Mareykanka. halista ka imaanaysay midowga Soofiyeed wuxuu ahaa mid aan laga dhayalsan karayn gudaha Washington, waayo waxay u arkayeen inuu khatar ku yahay mabaadi'da dhaqaale iyo xukun ee adduunka lagu soo dabaalayo. ama mudida NATO iyo hindiseedu wuxuu bilowday sanadkii 1947, 2 sano uun ka gadaal markii dagaalkii labaad laga falaxashay, balse waxaa si rasmi ah dhidibada loogu adkeeyey sanadkii 1949. NATO iyo asaaskeedu waxay u noqdeen lafdhabar dagaalka qabow ee bilaabada doona. dhanka kale dalalkii midowga Soofiyeed la jaalka ahaa oo ugu xoog badan yihiin Jarmalkii bariga, Albania, Hungary, Romania iyo dhowr dal oo kale waxay iyaguna samaysteen isbahaysiga la yiraahdo Warsaw Treaty Organization. waxaa loogu magac daray magaalada Poland xarunta u ah ee Warsaw oo shirku ka dhacay, waxaana jawaab u ahayd NATO. laakiin isku darka labada isbahaysiba wuxuu noqon doonaa furaha dagaalka qabow iyo mid la isku sigto. dhanka kale asaaska Warsaw iyo NATO muddo badan ayaa u dhaxaysay oo Ruushku uu la soo daahay dhisideeda, waayo waxaa Warsaw dhidibada loo taagay sanadkii 1955, waana muddo 6 sano ku siman inta u dhaxaysa labada isbahaysi ismahooda. dadka qaar waxay isweydiin karaan Cuthmaaniyadii oo ahayd quwadda islaamka kaliya ee dhex boodaysay dunida la qaybsanayo meeday. waxay noqotay jamhuuriyad la yiraahdo Turkiye oo ku soo koobantay dhulkii Anatolia. dalalkii carabtana qabiil ayay mucaahidooyin ula galeen Ingiriiska iyo Faransiiska. dhulka Sham sida Lubnaan iyo Suuriya waxaa ku habsaday Faransiiska. khaliijka badankiisii waxaa calafsaday Ingiriiska. dalalka Maqrib ee dhinaca waqooyi ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale ama dalalka carabtana badankooda iyagana Faransiiska ayaa la haaday. wixii soo harayna Talyaani ayaa maamushay. wixii intaa ka dambeeyayna Turkigu waxa uu ku dhawaaqay in ay galeen isbutayn dhammaan siyaasadihii saancaduhu ciyaarayay oo dhanna dib ay uga joogeen. Turkigu marti ayayna ka noqdeen gabi ahaanba, waxayna colaad xun u qaadeen carabtii ilaa xadna waa fogaadeen oo luqadii carabiga ahayd oo dhan ayay mamnuuceen. dowladoodii waxay noqotay mid cilmaaniyad qaadata, mabaadi'doodiina waxay ku sii milantay tareer galbeedka, isla markaana waxay galeen marxaladda loo yaqaano isbadbaadin iyo siyaasadda colaad la'aanta ee Zero Policy Strategy, ama si kale the Zero Problem Strategy Policy. sida hore u maqasheenba Mareykanku waa hogaamiyaha dalalka reer galbeedka markaas. Ruushkuna wuxuu isku dhigay hogaamiyaha reer bariga, isla markiiba waxaa la isla diiday arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha. dagaaladii hore dhammaantood dhaqaale kama marnayn, kan qabowna waxaa lafdhabar u noqon doona dhaqaale. waxaa Ruushku uu horkacay mabaadi' dhaqaale oo hanti wadaag ama la yiraahdo communism. macnaheedu waxa weeye in dadka hantida haysta ay la leeyihiin dhaqaalahooda dadka kale oo dhan, hantiduna dadka ka dhaxayso. dawladuna ay noqoto tan maamusha mashaariicda waaweyn ee dalka oo idil. Mareykanku wuxuu hor qaaday isaguna siyaasadda hanti-goosadka ama capitalist oo fasiraadeedu tahay qof kasta wuxuu shaqaysto isaga iskale. dhaqaalaha iyo ganacsiguna waa xor oo cid walba waa u furanta. kuwaasi waa arrimihii dhaqaalaha
waxaa dheeraa kala duwanaansho dhinaca siyaasadda oo aan idin idhi qaybta maqan ee Yurub qaybintii Jarmalka iyo hubka faraha badan ee qolo kasta samaysanayso ayaa walaac xooggan iyaguna leh kala qaybintii Jarmalka xal ayaa loo arkayay dagaalkii labaad ee dunida oo waxay hadeerto u muuqataa balse inay laf dhuungashay ku noqotay dalalkii reer galbeedka markii la kala qaybinayay Jarmalka waxay ahayd heshiis ay wada galeen wadamada reer galbeedka Mareykanka iyo Ingiriisku ay horboodayeen iyo dawladii dalka Russia oo markaasi ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa labo in Hitler uusan dib dambe dagaal u soo qaadin iyo Jarmalka laftiisa in la niyad jabiyo oo quwadiisana la kala dhantaalo sidoo kalena laga dhigo kuwo ayaga la isku isticmaalo oo cadow isku ah taasina ay meesha ka saarto han kasta oo dib Jarmalku isugu abaabuli karo iyo in lala socdo oo si dhow loo indha-indheeyo warshadihii hubka ee casriga ahaa iyo khubradii Jarmalka ee halista badneed ee diyaariyay agabkii military ee Hitler dagaalka ku galay sanadkii 1939 ee muddo 6 sanadood uu cagta ku mariyay kuna halakeeyay inta badan qaaradda Yurub wadamo kale oo khalkhal dhinaca naga galiyay Ruushka laftiisa dan weyn ayaa ugu jirtay inuu qaybta bari uu helo ee dalka Jarmalka waayo Ruushku wuxuu u isticmaalayay meel uu ka soo galo Yurubta galbeed wuxuu helay dad Jarmal ah oo luqadaha oo dhan garanaya isla markaana laga sooci karin qaybta galbeed ama xataa dalalka kale ee uu doonayo inuu basaaso dagaalkani waa kan ugu weyn ee taariikhda dunida ee sirdoon la isku adeegsaday markan waxaa horumarsan tiknoolajiyadda waxaa kaloo la fahmay in qorigii lala ordayay xeelad kale lagu bedelo in badan laba hayadood ayaa isgarab yaacay markiiba midka kale waxay doonaysay inay tartanka dhinaca sirdoonka isgaarsiinta xag ururinta isbasaasidda iyo waxa loo yaqaan ilaaxad kala horarsiga wararka ay kala noqdeen midowgii Soviet waxa uu dhidibada u aasay isla markaan horkacay hay'adiisa caankeeda loo yaqaanay KGB halka Mareykankuna uu carbiyay saraakiil iyo dhalinyaro heer sare ah kuwaas oo iyaguna farta ka xidhan oo la baxay hay'adda CIA ee dalka Mareykanka ilaa hadeerto ka sii jirtay labada hayadood ayaa sida jiirka iyo bisada waxay isugu eriyeen inta badan magaalooyinka waaweyn ee dunida gaar ahaan kuwa reer galbeedka mid kasta waxay doonaysay inay ogaato kana sii faano horeyso inta aan xogteeda iyada la helin waxaa la yaab noqotay in dhibaatooyin aad u waaweyn ay soo gaari jireen madaxda kale ee dunida kuwaasoo iyadoo lagu xumeenayo wadanka ay cilaaqaadka la leeyihiin la dili jiray qaarkood la afgambi jiray kuwa kale dhibaato aad xoogan loo geysan jiray haddaba dagaalka qabow ee dunidu waa ka siyaasadeed ee ugu adkaaya dunida soo maray dagaalona way dhaceen isaga daba socday waxaana barnaamijyada dambe ku maqli doontaan warbixino iyo sheekooyin la yaab leh taariikho cajiib ah oo dhammaantood ku aadan sidii ay wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanku intii hogaaminayay iyo intii uu hogaaminayay midowgii Soviet ama Ruushka oo ay soo gaarsiin doona ilaa iyo kala dilaaciya kala dilaankii wadamadii midowgii Soviet iyo sidii loo kala adkaaday foosha xumeed iyo sidoo kale wixii la kala mutay iyo markii hubka nuclearka u dhiciga la isku diri gaaray aad ku maqli doontaa barnaamijyada dambe ee warwareyn waa aniga iyo Cabdishiix Xasan oo idin amaanaad